Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay dagaalkii ay shalay la galeen ciidamada liu booliska ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya inay ku dileen in ka badan 100 askari. Faahfaahin kooban oo ururka Al-Shabaab uu dagaalka ka soo saaray wuxuu ku sheegay fariisimo ay ciidamada liu booliska ka sameysteen deegaanka Aato ee gobolka Bokool ay cagta mariyeen hub iyo saanado ciidanna ay ka furteen sida ay ku sheegeen cod ay ku baahiyeen barahooda bulshada. Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab oo ah afhayeenka Al-Shabaab kana mid ahaa xubnihii ay Itoobiya sheegtay inay ku dishay dagaalkii ka dhacay deegaanka Aato wuxuu sheegay subaxnimadii shalay ahayd in ciidamada liu booliska ay ku qaadeen dagaal culus. Kama uusan hadlin wararka sheegaya in la dilay shalay, mana cadda xilliga uu codkaasi duubay. Shalay waxay qarax ku dileen wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo wiilkiisii, dhowr qof oo kale way ku dhaawaceen iyadoo ay kasii horeysay qaraxii lagu dilay gudoomiyihii degmada Marko iyo mas'uuliyiin kale. Si la mid ah daraad waxay Al-Shabaab weerar ku qaraxay ka geysteen degmada Afgooye. Dagaalkii ay ku qaadeen buuraleyda gobolka Afdheer ee dalka Itoobiya ayaa weli socda iyadoo ay weerareen si la mid ah deegaanka Lamu miina ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Kenya isla toddobaadkan.